nabadda odayaal idilkiinba meel kasta aad joogtaan iyo si kasta uu muuqaalkeena idiin soo gaarayo maanta waxaan idiin haynaa baraha bulshada saddexdii maalmood ee ugu dambeeyey waxaa hadal heen badan ka dhaliyey lamaanaha qarniga waa lamaanaha la holin waayey waa fanaanada qaaliga Farxiyo Fiska iyo fanaanka kale ee da'da yar Mubaarak October waxa ila jooga wariye Xaaji Gool oo inta badanna bulshada wacyigelin u sameeya hadii aan leedahay arrimaha qoyska arrimaha tahriibka arrimaha muqaadaraadka bulshada ayuu ka wacyigeliyaa waa tahay intaan Xaaji Gool u imaan bal waxaan isla daawan doonaa muuqaal yar oo ay soo dhigeen lamaanahan qarniga waa Farxiyo Fiska iyo Mubaarak October iyagoo leh madaxa ayaad ii saarantahay ana isla daawano muuqaalkaas kadib falcelin ayaan sameyn doonaa حاجة سودو طبعا براها بالشدة صدح ذي مالمود يقدم بي وحا هذا الهم بدن كدليه فنانة رنتي قيمها بدن وفرحية فسكة هي فنان ككله مبارك أكتوبر يودك صوماليدا أي دليل بدن أسو جديين قاركود أيا وحا إليهن فنانة دني فرحية فسكة وحا ودع علم بارس دنك الرجاء قاركود نوحا إليهن wiilkani aad ay ugu yar yahay ma macdanta ayay kala bixaysaa bal maxaa keenay horta marka koowaad in qoysaska Soomaaliyeed ee isguursada ee farxadda doonay inay wada qaybsadaan in lagu mashquulo hadii aan Soomaalinahay Baasha Ismaaciil aad iyo aad iyadu mahadsan tahay waan ku dhawahay barnaamijka runtii waa mid loo baahnaa in markaasi bal laga jawaabo su'aalahaasi dadweynaha Soomaaliyeed ee caalamka ku nool meel kasta ay joogaan ay isweydiinayaan sida la soconaba Soomaalidu de dhaqan bay leedahay dhaqankaas waxa uu leeyahay hadii aad ammaan doonaysana dhimo hadii aad aflagaadiyo ay doonaysana guursa lagu yiri marka wax waa soo weyn maaha sax dhaqankeena bada waxa weeye wax ka soo jireenaa ka guursada in wax laga sheego jawaabta halkaas waxa weeye horta ay ka dhowdahay waa gartay mid kale de sida la soconaba arrimaha wax cusub maaha sababtoo ah way jiri jireen ilaa xawiye aadan intii waxa weeye ilaahay waxa weeye uu adduunka keenay ilaa iyo hadda arrimahaas way iska jiraan waxa weeye qof kasta dooqiisa inuu guursado laakiin waxa keenaya dhibaatada haddii aad qalin ka qaado meel aad dhigto caalamku dhan laga waaganaya waa gartay taana waxa ugu caawa tiknoolajiyada casriga ah waa gartay marka intaas oo nagu soo biirta mooyee wax cusub oo ma garanaysaa hadda Farxiyo iyo wiilkaas Mubaarak saadi sheegtay waa Mubaarak walaal hadda ay soo kale waxa weeye cusub ay keenan male waa wada caado hore jirtay bay mareen marka waxa leedahay isdoorashada iyo isfahanka ayaa ka muhiimsan da'da waa sembri inta badan waxa weeye waxa la yiraahdaa marka aad guursanayso daabada ay ka yartahay xogaa waxa weeye hadii daa ka weyn ay guursato dhaqanka Soomaaliga waxa uu yiraahdaa waxa weeye way iska bayaan sababtoo ah inta badan waxa weeye maadaama daada yar ay inta badan ay waxooda ay fresh yihiin waxa weeye daada weyn waxaad moodaa in magansaay marka daada yar ayaa mar walba waxa leedahay wuxuu kabayaa daada weyn heestii Axmed Cali Galmad maqlay sida neefta weylaha naacaw ku doogsada aad marka waxa la yiraahdaa ma sha Allah waxa weeye markii hore chance fiican way wanaagsan tahay leedahay muxuma xilliga hore Soomaalidu waxay dhihi jireen ninka weyn ayaa ku dhaqay kara hadda sabab isbedeshay si wanaagsan haweeney ka weyn ayaa ku dhaqay kartaa waa gartay si wanaagsan marka waxaan maleynayaa isbedel dhaqan baa balihan iska socda waa gartay waxaan hadda maqalaa ragba waxa weeye intay meel ka tagaan meel kala tagaan markaas u guur doontaan hadda gabdhihiiba waxa weeye guurkii doonanaya waa gartay haween badan maalin waxa laga yaabaa heerinkii waxa loo oran jiray gabdhuhu ay heermi jireen marka ay meel inta ku weynaadaan ay sidaadaan waxa weeye waad ku guur beelaysan ka carari jireen meel kala tagi jireen in hadda
raggiiba hadda waxa weeye guurkii ka weynaanayo inay iguna heerin isu bedelaan yaan ka baqayaa waay dhexdaas aad waxaa u heystay sidoo kale baraha bulshada haween ka imaanaya dhanka iyo qurbaha si wanaagsan oo wiilal yaryar oo Afrika jooga isla markaas la aqal galaya arrinka ma maqashay waxna ma ka soo gaaray waan maqlay wax way ka soo gaareen aniga laftayga waxa weeye arrimahaas dhalinyaro waxa weeye ka sheekaysanaysa oo barnaamijka ku jirta way sheegeen laakiin markaan eegay waxa weeye waa markaad eegto adduunyadiisa xaalku yahay waxaad moodaa in waxa weeye nolosha ay ku fiican tahay ma loo xalin karaa in guurka noocaas oo kale interest u yahay dan ay ku jirto waa de guurku farbadan yahay Soomaalida ilaa 12 nooc weeye Soomaalida guurkooda waa bal u sharax dadka marka guurkan hadda waxa weeye guur danaysiga la yiraahdo waa garta guurkan da'da aan isla hadda wiilkani gabadha ka imaanaysa banaanka iyo wiilka halkan jooga labadooda wax doorasho ama xulasho ma jiro waxbuu ka dhex arkayaa waxbuu ka dhex arkayaa dantiisa uu ka dhex arkayaa iyaduna sidoo kale dantiisa ay danteeda ka dhex arkaysaa marka waa guur kooban marka waa guur danaysi laakiin guur jacayl iyo marxabeen iyo guurka inaga inta badan waxa weeye aynu ka qayb galay xafladaha ee nagu yeelo hadaynu nahay wariyaasha waa guur waxa weeye magaalada doonisa oo labada reer magaalada wiilkiya gabadha ay isdoonaan kaas waa doonisti weeye ayda kan kala xiisaha leh waa kan waxa weeye gabdhuhu ay imaanayaan oo ay magaalada raggi ay guursanayaan waa ka xiisa gaaraan laakiin waxa pointiga si hoos kor u sii qaaday farxiyo hadda barnaamijka ku jiro waa tahay farxiyo fanaanad caan ah waay waa saqiir bay leeyihiin wiilkana aad u yar yahay 19 jir hadda daawanayay meel video ma xaflad may ahayd leeyahay waxa weeye abiy baa keenay meel buu keenay barnaamij lagu qabanayay aad weyn way jirtaa marka 12 jir buu hayo xilligaas 2015 gabadhii magaalada wareysanaysa wariye xogaa dhib ku yar qabtay microphone-ka waxa weeye waxay tiraahdaa codkaaga lama maqlay ku dhaweey ma hadli karin ba marka odayga abiya keenay oo 2015 wiil oo jiray 12 sano jir haddana waa la aqal galay fanaanada qaaliga Farxiyo Fiska arrinkaas daawade dabcan dadweynuhu siyaabo kala duwan ay ugu falcelinayeen qaarkood amaan iyo bogaadin ay soo jeedinayeen qaarkoodna dabcan dhaliilo badan ay u soo jeedinayeen fanaanadan runtii waa fanaanad aad u qiimo badan laakiin inta badan dadku mid ayaan ka dhaadhacsanayn laakiin se waxaan oran karaa farxiyo waxay noqon kartaa waddo ayay noo furaysaa kuwa kalena way ka soo daba socdaan ma filayo inay waxa weeye ay halkaa ku baaba'ayso way socon doontaa marka wax iska soo jireen soo jireen weeye marka waxaan leeyahay waa farxiya waxa weeye waa haliyey baan oran karaa haddii halkaa kusii socotaa lena ma isleedahay dhanka odayaasha u hadloosaa macnaha isleedahay waddo furmatay waay ما xogaa odayaasha deynta badan la lahaa gabdho yar oo 20 jir iyo 16 jir guursadeen dhanka gabdhaha markoodana de waxa way nagu qaateen moogta hadii gabdhiin dumarayn inoo aan qaadano waa gartay waka عدالة هي وحوي إن دتك عنك إبراهيم بلشة كجرا مرك جور كودا لما خلوا أنت بدأ واحد دعوا إنكم متي قلدان يا رأي قلدان لقى بحيو كدبنا هالكسفرين وكدعوا سو نكسن بل أرنكاس كورة أنت بدأ دتك حوي كومنتي ذا بحنايا ودد حوي أما حوي كفيل الجروبية ودداس أما حوي أنا واحد فكرة كهيسن يبدأ يبان ملايا دتكاس دي أنا حوي أنا دي بقى فيريو كومنتي ذا مرك باشو أنا runtii waxaan oran lahaa arintaasi waxa weeye hala sii wadwado waa gartay waxa weeye hala sii qayb qaado hala sii bumbuunay waan wax soo jireena halyeenimadii qayb ka taal leedahay ay qayb bay ka tahay waa idin bulshadii waxa weeye waa in dhan walba laga helaa aad u weyn waa in meeshu in la taagnada maaha marka adigu waa taageeraysaa qof walba iyo qofka uu la dooqiisa shimirkiisa la duulaan leedahay haddii wiilku uu gartay waxa weeye inuu uu noqdo magaalada ii sheegay xaas uu noqoto de waa choice-kiisa weeye caafimaadka saameyn iyo wax ma dhacayaan somaa caafimaad ma dhacayo waxa waa gartay waa iska caadi ah wax iska caadi waa gartay dadka qaar laakiin waxay dhahaan ninka lafihiisu iibsaday qofku markuu haweeneyda haday guursato nin ka weyn oo kale lafaheeda ku khamaartantay wiilka hadduu guursado haweeney ka weyn oo kale lafihiisu ku ciyaaray macnaha calciumka dhamaanayo aniga ma subxa ka jiro calciumku marbu ku soo gala wili iyo marka uu soconaa buugta كان شو بس كسر عنصر والله عداء ها باشو الكوري هوسبا ممر بحوي مركز كلابا المقرنسة ايش سرال تكني
hawsha waxa weeye mar kasta waxa weeye wala isaga baahan waana da waajib sunno waxa weeye ilaahay waxa weeye magaasa inuu galadaystay marka hadii guur xalaal ay sameysteen sax ma sha Allah baan leenahay halagu socdo sida odayguba gabadha uu vitaminka waxa weeye aad sheegayso uga helayo si fiican ya gabdhaha waaweyn waxa weeye vitaminka ilmaha yar ay uga helayaan laakiin sida dhalinyaradu ma daalayaan markii waxa weeye hadda waa jirkooda cusub yahay maalin habeen walba salis ka dhimanaya salis kala soo baxaya marka tan fiican haystaan tan fiican baystaan marka waxa weeye marka waxa leedahay ma qabaan wixii isku dooqa iyo wixii isfahmi kara ba isku guursadaan waxa weeye isla doolaan isla yaacan baleen waa da'da muhiim ma hana leedahay da'da muhiim ma waa isfahamka waa aragtida xaaji gool oo kamid ah bahda warbaahinta sidoo kalena ah khabiir dhanka arrimaha bulshada ah saaxiibayaal su'aasha kaliya aniga idin weydiinaya ayaa waxay tahay maxay dadka Soomaaliyeed qoysaska Soomaalida ah ugu mashquulaan tusaale hadduu wiil gabar guursado ama gabar haddii wiil isguursadaan maxaa keena in inta badan mashquulka ama gurigaas sidii loo burburin lahaa loogu shaqeeyo dhanka kumitiga nagulowdaag guud ahaan barnaamijkeennii intaas ayaan kusoo gabagabeynaya waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Baash Cumar waxa ay kala qayb galay xaaji gool intaan mar kale kulmayna waxaan idin leenahay sidaas iyo amaane Allah